halkan waa xaruntii uu ku howlgeli jiray Isbitaalka Deva horeyna u ahayd dugsigii sare ee Banaadir oo hoostagi jiray wasaaradda waxbarashada amar ka soo baxay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa lagu aqoonsaday inay noqoto qayb ka mid ah xarumaha gurmadka degdega ee musiibooyinka maamulka gobolka Banaadir oo gacanta ku hayay xaruntan iyo mas'uuliyiinta wasaaradaha waxbarashada iyo caafimaadka ayaa si buuxda u wareejiyay xaruntan agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdullaahi Xaashi oo hadal ka jeediyay munaasabadii lagu wareejinayay xaruntan ayaa ka hadlay ahmiyadda goobtan iyo shaqooyinkii hore loogu soo qabtay. Waxaan filayaa muhiimadda ay leedahay emergency-ga ama xaaladaha degdega inay leeyihiin cid loo fasirayo maanta Soomaaliya ma jiro dalkan waxyaalo ku soo maray wada ogtihiin muddo dheer baan arrintan laga doodayay waxayna ka mid ahay halbeegyadii wasaaraduhu ay geeyeen xafiiska wasaaraha oo ahayd in la helo si degdeg ah loo helo xarun gurmad ah wadanka wada ogtahay xarun gurmad la'aan waxyaalaha dhibabka ugu weyn isfaham la'aanta iyo coordination la'aanta keenay ka mid ahayd waa alxamdulillah hadii marka hadda maanta loo helay waagii hore markasta wax degdeg u dhacaan waxaad ogeyd hadba xafiis baa qof laga amaahan jiray hadba waxba la isla raadin jiray hadda laakiin waxaan filaynaa markii xarun saan oo kale la sameeyo qof walba meeshuu aadi lahaa inuu yaqaano oo si xarunta ku imaanayo kadibna hawshii loogu talagalay uu meesha ka qabsanayo. Faysal Cumar Guuleed oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa ka warbixiyay heerarkii kala duwanaa ee ay soo martay xaruntan iyo marxaladda xilligan. Waxaan isku nimidnay xarun hore u ahaan jirtay xaruntii wasaaradda waxbarashadu ay lahayd oo ahaa iskuulkii dugsiga sare Banaadir muddadii burburku dhacay ka bacdina dawladda Turkiga soo gurmatay hay'ad ka mid ah ay ka samaysatay xarun caafimaad sidaas ka bacdina ay intii muddo ahayd ay ku shaqeynaysay wasaaradda caafimaadka marka hadda muddo ku shaqeynaysay haddana waxa la rabaa in lagu wareejiyo muxuu ahaa maamulka gobolka Banaadir oo iyaguna muddo badan gacanta ku soo hayay oo markii ay hay'adii ka baxday ka bacdi iyaguna daryeelkeega iyo amnigeega iyo wax walba ka soo shaqeeyay iminkana la rabo in guddi la magacaabay oo masiibooyinka markii ay dhacaan maxalun la rabo in laga sameeyo hadii ilaahay yiraahdo duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir Mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Firish ayaa sharaxaad ka bixiyay waxa xaruntan ay noqon doonto iyo adeegyadii ay horay u bixin jirtay. Munaasabadan waxay tahay sida ay u sheegeen mas'uuliyiinta iga horeysay meesha aan taaganahay oo ah Isbitaalka Deva loo yaqaano ahaan jirtay dugsigii sare Banaadir ayaa waxa dawladdu ay uga baahatay inay u isticmaasho mid ka mid ah xarumaheeda ka hortagga masiibooyinka xarumahaas tii weyneed oo ku talagalka ahayd ra'iisul wasaaraha mar hore dhagax dhigay hawsheeduna waa ay socotaa balse waxaa loo baahday kuwa kale oo u sii shaqeeya si parallel ah ama barbar socda si loo helo ayaa ra'iisul wasaaruhu wuxuu ku taliyay in isbitaalkan Deva la yiraahdo laga dhigo mid ka mid ah xarumahaas xaruntan hay'adii gacanta ku hay jirtay ee Deva marka ay shaqadeedii ka tagtay waxaa gacanta ku hayay maamulka gobolka Banaadir maamulka gobolka Banaadir marka iyo wasaaradda waxbarashada maadaama meeshu talagalkeeda hore markeeda hore iskuul ay ahayd iyo wasaaradda caafimaadka oo waxa caafimaadka iyadu mas'uuliyadeeda iska leh ayaa maantii ku wareejinaya hay'adii ra'iisul wasaaruhu uu amray in lagu wareejiyo